iyadoo shalay magaalada Jowhar ee caasimadda dawlad goboleedka Hirshabelle ay ka dhaceen dagaalo u dhaxeeyay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya halkaasi ay geysay oo garab siinaya ciidamada dawlad goboleedka Hirshabelle iyo sidoo kale maleeshiyad macwiisley ah ka ogeysay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa waxa maanta ka hadlay ugaas Maxamed Weli ugaas Xuseen Islaaw oo kamid ah duubabka dhaqanka Soomaaliyeed isagoona sidoo kale baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ah ee dirirta ku dhaxmaraysa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan isagoona sheegay in dagaalka dhaxmaraya labadaasi beelood ee walaalaha ah aysan faa'iido u ahayn dadka deegaankaasi ku dhaqan isla markaana dhiig badan uu ku daadanayo haddaba ugaas Maxamed Weli ugaas Xuseen Islaaw oo la hadlay warbaahinta ayaa baaq nabadeed u jeediyay beelaha walaalaha ah ee ku diriraya dawlad goboleedka Hirshabelle isagoona sidoo kale tacsi tiiraanyale u diray qoysaska iyo qaraabada iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo ay ka baxeen halyeeyadii garabka u ahaa madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabelle Cali Goodlaaw Xuseen oo shalay ku geeriyooday dagaalka ka dhacay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle ahna xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe isagoona kuwa ku dhaawacmay dagaalkaasina uu eebbe ugu bariyay in uu caafimaad degdeg ah siiyo waxaan halkaan ugu tacsiyeynaa dhammaan saraakiishii ku dhimatay dagaalkii ka dhacay shalay magaalada madaxda Hirshabelle degmada Jowhar dagaalkaas ay ku dhinteen saraakiil xigeen iyo xoghayn areeyo qabrigooda Allah u waasiciyo waxaan ka codsanaynaa in maamul goboleedka Hirshabelle aysan dagaal dambe iyo wax la mid ah aysan ka dhicin degmada Jowhar ayagoo iska dhibaataysan oo fatahaadii biyaha ay ku hareeraysan yihiin inta dhiman ee hadeer dadaalka lagu haayana ay tahay maamulka Hirshabelle kaliya waxaan codsanayaa in hay'adaha samafalka kuwa caalamiga kuwa lokalka dawladda federaalka maamul goboleedka Hirshabelle jaalida ka soo jeedo Hirshabelle qaasatan Jowhar waxaan leenahay aan ugu baaqayaa inay dadkaas la soo gaaraan wax ay hu iyo ka dhigtaan waayo guriyahooda ka soo barakaceen meel buur ah ama taag ah ay saaran yihiin waana ku dhibaataysan yihiin ilaahay dhibaatadoodana wax ka dulqaadi kara Allah subhanahu wa ta'ala ayaa ka jiro iyo intii wax garato islaamana u baaqay in dhibaatadaas ayagana dadka masaakiinta ah ee ka soo barakacay tuulooyinkaas Jowhar agagaarkeeda ah inuu ilaahay ka dulqaado waxaan kale oo aanu ka faa'iideysanayo aan baaq halkaan ugu jeedinayaa dagaaladii maalmahan dambe ka soo cusboonaaday gobolka Hiiraan qaasatan magaalada Beledweyne oo ayadana ay ku dagaalamayeen laba beel oo walaalo ah waxaan ka codsanayaa in dagaalkaas si degdeg ah lagu joojiyo waayo dagaal wiilku ma dhasho waa aad noo dhibaya waa dad walaalaheena waa dad labadeena gacmood ah walaalayaal waxaan idin leenahay dagaalka aad ka wadaan magaalada Beledweyne qaasatan agagaarkeeda ama tuulooyinka u dhow waxaan leenahay dagaalkaas la joojiyo Axmed Socdaal degmada Balcad